kooxda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee horseed waxay sameynaysaa diyaargarow xoogan oo ay isugu diyaargareynayso kulamada ka harsan horyaalka Soomaali Premier League kadib markii adduunyada oo dhan uu majaxaalufiyay cudurka COVID-19 waxaana wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo sidoo kale xiriirka kubadda cagta madaxdeeda ugu sarsare ay go'aan ka gaareen sida adduunyada ka jirtaba in la hakiyo dhammaan ciyaaraha laga ciyaarayo Soomaaliya kooxda horseed waa ay saameysay go'aankaasi maadaama horyaalkan hal dhibic ay ku hayeen markii dhidibada loo laabay cudurka COVID-19 awgi kooxda kubadda cagta ee horseed maanta kaliya ma aysan bilaabin tababarkan iskuuleynta waxaa muddooyinkii toddobaadadii la soo dhaafay ku jireen tababar xoogan oo ay rabaan xisaabtan inay u galaan kulamada uga harsan horyaalka Soomaali Premier League si ay u noqdaan ku guuleystayaasha horyaalka Soomaali Premier League muddo kadib oo ay rajeynayaan inay la xifaaltamaan kooxda uu hogaamiyo Cali ee dekadaha kooxda kubadda cagta ee horseed inkastoo tababarka maanta aysan ciyaartooyda u dhameen hase yeeshee kooxda waxaa la jaan qaadaya ciyaartooyda kooxda ku cusbayd sida Macaani sidoo kale laacibka lagu magacaabo Cabdikariin Qubaye waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda lagu boqoray horyaalka Soomaali Premier League kadib marar badan uu noqday horyaal man taageerayaasha kooxda ciidanka xoogga dalka waxay aaminsan yihiin isbeddelka uu sameeyay taliye korneelka oo ah hogaamiyaha koowaad ee kooxda kubadda cagta ee horseed ahna gudoomiyaha kooxdan waxay rajo ka qabaan in kooxda horseed kaliya ay ka go'an tahay ku guuleysiga horyaalka Soomaali Premier League macallin Cabdi John oo kamid ah macallimiinta ugu wanaagsan ee horyaalka Soomaaliya ka xamaasha waxa uu qabaa aragti ahaan inaysan u baaqsan doonin dhibaatadii laga dhaxlay cudurka COVID-19 waxaana ay rajeynayaan soo kabasho iyo sidoo kale in horyaalka ay meel wacan ka gaaraan tababarkeen aniga muddo adiga wax badan aan wadnay maadaama markii tartanka uu joogsaday kadib waan bilaabnay tababarka si saxan anaga u diyaar garoobeen in horyaalka maartay meesha hadda aan keen inaan kasii joogno runtii hoggaankeena aan sii dhuuqsano taasana maartay keentay inaan tababarka sii joogtay horta hore horyaalka dad badan oo naga leexay maadaama kooxaha dhan ay is haystaan dhibco badan ay si kala koreen aniga waxaan ku hogaaminaynaa hal dhibic runtii waan rajeynaa dadka hadday ay calaamad saareen laakiin wuxuu rabaa shaqo runtiina dadaalkiisa oo ku jirna haddii ilaahay rado waqtigu ilaahay noogu talagalan haddii anaga ilaahay noogu talagalana waa qaadaynaa laakiin meesha shaqadaana ka marnayn xanuunkan ummadda dhan oo islaamka oo dhan oo saameeyey waxaa ka dareemi kartaa magaalada Muqdisho laftirkeeda aad iyo aad u maaragtay dad badan oo maaragtay uu saameeyey runtii waxaan leeyahay intii muslimiin ka badbaadana Allah ka badbaadiyo intii dhimatana Allah u naxariisto markasta ciyaartooyda albaabadooda uu furan yahay horseedna waxa ay kooxda ugu ciyaartooyda fiican ee wadanka ciyaartooyda magaca kula wadanka joogto run ahaantiina Macaani iyo Qubaye ayaa nagu cusbaa ciyaartooy kale oo cusub oo hadda aan soo qaadana ma jirto insha Allah laakiin waan rajeynaynaa inaan soo qaadano waqtiyada dambe hadii Ilaahay yiraahdo ugu dambeyntii waxaa Muqdisho Cable Sport la hadlay Cabdikariin Qubaye isagoo iiga sheekeeyay muddo kadib inuu ku soo guriyo noqday kooxda horseed oo uu hore markaa ugu ciyaari jiray laakiin kaliya waxaa ka maqan sida uu qabo in koobka horyaalka Soomaali Premier League uu kula dabaaldego sidoo kale Cabdikariin Qubaye ayaa ii sheegay in kaliya taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee horseed looga baahan yahay dhiirigelin iyo sidoo kale garab istaag si ay u noqdaan kuwa qabta shaqadii looga baahnaa inay koob kala keenaan Qubaye waxa uu intaa ku daray in koobka kaliya ee ka harsan ee farakutiriska uu rabo inuu kula dabaaldego kooxda kubadda cagta ee horseed imaasheeda micnaha mid aan ku qanacsanaa waxa horseed naadi hore uu soo ciyaari jiray dabcan waxa naadi marka waqti ku soo qaadatay waqti yar ku qaadatay misna ka tagtay misna ku soo laabtay dareemi kartaa horseed naadi inaan ku soo biirno aad u faraxsanahay ciyaaryahan walba wuxuu u tartamayo inuu micnaha ciyaaryahan champion noqdo runaantii naadigan ay hamideen inay horyaal qaada anina micnaha ciyaaryahan ahaan waxaan jeclahay horyaal walba oo wadanka inaan ku guuleysto because ciyaaryahan hamigiisa inuu horyaal qaataan horseed tor ciyaartooyda dhammaan waa asxaab qarna asna dhammaan ciyaartooy badan oo isku cusubna way jiraan dhammaantoodna asxaab gooni oo aan leeyahay ma jiro laakiin dhammaantood dad asxaab oo micnaha isfahmi asxaabtana banooniga dadka isku fahmo wax dad iska jecel ma jirto banooni ahaan Soomaali ani micnaha Soomaaliya waa dhashtay horyaal Soomaaliya ka ciyaarayaan ku cusub mii wadanka waa ciyaaryahan la yaqaan ahay dabcan macalinkeygana waa macallin Cabdi oo micnaha macallin juhdi badan isoo galiyay magaca ahaan maanta aan leeyahay gudoomiyaha isku cusbeen runtii waxa waaye sabab waxa uu noqday inaan kooxdan imaado macallin Cabdi maamulkii oo isdhaxgalkeena hadana aad u sareeyo koob way jiraan oo dhiman oo Jana Daawud Camal ama Super Cup kaas wadankii markii kooxaha aan dheelay aan ka tagay kooxii guuleystay dekada Camal runtii hadaan joogo waxa jeclaa koobkaas iga dhiman inaan guuleysto
taageerayaasha meel walba joogaan horseed Ramadaan Mubarak waxaa la'aantood horseed taageer la'aan waxba ma nihin meel walba joogaan waxaan jecelnahay inaan ka farxino juhdi iyo dadaal waxay waqti noogu soo dhaminayaan inaan guul gaarsiin anaguna waxaan jecelnahay waqti noo soo dhamiyaan inaan ka farxino aan guul gaarsiin Cabdicaziz Cali Cusmaan Muqdisho Cable Sports tababarka kooxda horseed